najis yahow qarmuunka nadal yahow fataalka naxlibaadi gelisay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV oo arrimaha fanka iyo suugaanta aan kaga hadalno. haddaba tani waa Farxiyo Kabayare oo jawaab culus siisay fanaanka Maxamed Saciid BK. fanaanada waxay si cadho leh uga jawaabtay hadalkii ka soo yeedhay fanaanka caanka ah Maxamed Saciid BK. hadalkaas oo dadku guud ahaan si cadho leh ay uga jawaab celiyeen dhinaca baraha bulshada. laakiin hadalkaasi waxa uu ahaa qayb yar oo laga soo jaray muuqaal dheer oo BK ugu ducaynaya magaalada Muqdisho. laakiin Farxiyo Kabayare iyo qaabka ay ugu jawaabtay iyo waliba waxa ay tiri ayaan halkan idinku soo gudbinaynaa. haddaba haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato kanaalka qalbi Soomaali TV, fadlan calaamada subscribe ka taabo si aad u hesho barnaamijyada iyo wararka xiisaha leh ee maalin kasta aanu soo gudbino. kadibna calaamada gambaleelka furo. ku soo dhawow mowduuca maanta. ugu horeyn daawadayaal intaynan u gelin jawaabta Farxiyo Kabayare ee ku socota BK, fanaanka Maxamed Saciid BK waxa uu sheegay inuu Soomaalida oo dhan jecel yahay, waliba uu si gaar ah u sii jecel yahay meesha uu ka soo jeedo ee ah Somaliland. haddaba daawadayaal waxaan kanaalkan hore u soo gelinay fanaanka Iidlayare oo isaguna caayay BK isla markaa ku tilmaamay dameer iyo eey. laakiin fanaanka Iidlayare waxa uu arkay muuqaalkii BK oo aan dhamaystirnayn balse in yar laga soo jaray kaasoo lagu faafiyay baraha bulshada. sidaa darteed maaha in fanaaniintu iscaayaan iyaga oo aan waxba hubsan. haddaba daawadayaal bal aan u soo laabano hadalka Farxiyo Kabayare. Farxiyo Kabayare waxa ay baahisay hadal u dhow midka fanaanka Iidlayare baahiyay, laakiin iyadu ma ay caytamin ee jawaab culus ayay siisay fanaanka Maxamed Saciid BK oo lagu haysta hadalkii uu yidhi. haddaba Farxiyo Kabayare daawada hadalkeeda waxa ay ku bilowday sidan. waxa ay tiri hadalkii baraha bulshada qabsaday ee fanaanka Maxamed Saciid BK haddaan wax ka yidhaahdo, horta waxa uu tacsiyeeyay ama tacsi u diray ummadda reer Muqdisho. laakiin tacsidaas inuu ku eekaado ayaa qurux badnayd. hadalka kale oo xanafta leh oo xumaantiisa wata ayuu daba dhigay. intii xanafta lahayd ayaana la soo jaray oo nala soo hor mariyay. haddaba BK mid ayaan ku leeyahay, kala garo waqtiyada aad ka hadli karto ama aad ka hadli lahayd qadiyad iyo siyaasad. Farxiyo Kabayare waxay kaloo cabirtay waqtiyada ay Soomaalidu midaysan yihiin. iyadoo hadalkeeda sii wadatana waxa ay tiri waqtiyo waxaa jira ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay isku damqato oo ay murugo u wada taalo, iyo waqtiyo aan la kala hadhin ayaa jira. markaa kala baro BK-yow, waqtiyada aad suuqa ku shidan karto Somaliland ayaan jeclahay iyo Muqdisho ayaan necbahay. dhinaca kalena daawadayaal, Farxiyo Kabayare oo hadalkeeda sii wadata waxa ay tiri haddii aad reer Muqdisho necab tahay BK-yow oo aadan ka naxaynin, adigu shakhsi ayaad ka tahay. waxaana kaa badan walaalaheena faraha badan ee reer Somaliland oo had iyo jeer noo damqada nala ooya. markaa waxa aad tahayba waxaan ku ilaabaynaa walaalaheena reer Somaliland ee naga wada raali gelinaya qaladaadkaaga tirada badan ama faraha badan. sidaasoy tahayna had iyo jeer markasta annaga Somaliland waanu jecelnahay. waxa ay galaan iyo waxa ay gudaana waan ognahay. sidaa daraaddeedna canaanta iyo cambaaraynta reer Somaliland ayaa kugu filan, waana uga mahad celinaynaa. reer Somaliland kor allaha ka dhigo ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay.